Bismillahir Rahmanir Rahim war-saxaafadeed maanta oo taariikhdu ku beegan tahay 17 September sanadka 2022 gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale ayaa amar ka soo saaray dhulalka gaarka loo leeyahay iyo kuwa danta guud. Gudoomiyaha ayaa si ku meel gaar ah u hakiyay dhammaan arrimaha la xiriira dhulalka asigoona faray agaasimayaasha shaqada ku leh waaxahaasi in ilaa iyo amar dambe aan howlo la xiriira dhul la qaban karin marka laga reebo fasaxa dhismaha. Sidoo kale gudoomiyaha ayaa ku celiyay in dhulalka iyo guryaha danta guud ee hore loo hakiyay ay weli sidoodii ugu jiraan hakad asigoona ugu baaqay bulshada Soomaaliyeed in aysan wax kharasha iska gelinin dhul dan guud ah. Cidii ku dhiiratana ay iyadu qaadi doonto mas'uuliyadda. Gudoomiyaha ayaa ugu baaqay dadka Soomaaliyeed ee guryaha ku leh caasimadda Muqdisho in ay iska hubiyaan cidda ay ka kireynayaan guryahooda isla markaana ay mariyaan nidaamka hubinta si aysan ugu soo dhuuman kooxaha argagixisada ah. Cidii aan marin nidaamkaasi oo lagu qabto guryahooda shakhsiyaad argagixiso ama lagu fuliyo falal liddi ku ah amniga ay qaadan doonaan mas'uuliyadda dawladuna ay tallaabo ka qaadi doonto mulkiilayaasha guryahaasi. dhanka kale gudoomiyaha gobolka Banaadir mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale ayaa boogaadiyay howlgalladii ugu dambeeyay oo ay laamaha ammaanka ka fuliyeen caasimadda Muqdisho taasi oo lagu soo qabqabtay kooxo dhagar qabayaal ah iyo hubkooda laguna fashiliyay dhagartii ay u maleegayeen dadka ku nool gobolka Banaadir. duqa Muqdisho ayaa ugu baaqay bulshada caasimadda in ay sii xoojiyaan la shaqaynta hay'adaha ammaanka si wada jir ah loogu hortago dhagaraha cadawga ee lagu baneysanayo nafta iyo maalka dadka Soomaaliyeed.